دبتي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كوا إلهي رميي إيمان كودنا أن كلهن كبرحن واحد ظلمئة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كوا ويكوا اللبتقلية إسكالي أو هنوصا وكواس صحابة دي مركة وادبتي وحي أولبتي ظلمي كان آيات كسوة أروري با وحي أفهمين إني تهي معصية يدنبي مركة سواحدة أينا لم يظلم نفسه منك أنك نغمد أن نفتي صدظلمين ياوي كل جنا نفترض وان ظلم الحين الروح عن دم بيجي نجمتشر مركز سوى النبي صلى الله عليه وسلم وحكير إنه ليس الذي تعنون كاد مودين معه سيداد وقادتين معه يعني وحويان إذن كساد فهمتين معه ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم مييران مقل سيدا ويري أدون كي وناك سنة wiilkii sawaaninayo waa luqmaan wiilkaygiiyow ilaahay cidna ha la wadaajininayo alliya adoomadiisa waxay sugu darin maxaa yeelay dhulm yani waxa shirkigu waa dhulmi weyn inna shirka la dhulmun azim marka walam yalbisu iimanahum bidhulmin ta inma dhalika shirku nabi sallallahu alayhi wasallam ayadu waxay ka wadaa'un oo dhulmiga lagu sheegay halkaas waa shirki ee dambiyadii kale ma ah dambiyadii kale iimaanka haba dhaawaceen laakiin haddana amnigii iyo hanuunkii ma diidayaan saas macna marka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu fasiray aayadda quraanka oo saxaabada ka ishkaal gashay ayuu nabigu u cadeeyay sallallahu rabbi wasallam alayhi waxa kamid ah mesela xadiiskii nabigu oran jiray sallallahu alayhi wasallam man nuqisha al-hisab udhib ninkii xisaab man nuqisha al-hisab udhib ninkii macnaha xisaabta lagu adkeeyo oo xisaabta la faguro oo wixii uu galay mid la isula dul taago wala cadaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas Aisha waxay tiri ya rasuulallah ilaahi soo quraanka kuma dhihin fasawfa yuhasabu hisaban yasiran hisaab fudud bal hisaab doona soo ilaahi ma dhihin marka ilaahi hisaab fudud buu sheegayaa ruuxii la xisaabiyaba wala cadaabay maxad u leedahay markaas wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam inma dhalika al-ard kaasi waa bandhig laakiin man nuqisha al-hisab u'dhib taa aayadu ka hadlayso xisaab fudud baa la xisaabinaya waxa waa bandhig adoonka iyo dambiyadiisi in ilaahay inta uu loo soo bandhigo may adoonkii inta loo soo bandhigo dambiyadiisi la tuso in markaa kadib waa laga cafiyay taas laakiin ruuxi xisaabtiisa mid la isula dul taagay kaas waa la cadaab marka nabigu wuu fasiray sallallahu alayhi wasallam Aisha ishkaalkii ku dhashay buu u fasiray u cadii وهكذا ايضا نوع سكره فربدين ان اعطيناك الكوثر كوثر معنا يدادا كوثر معنا النبي صلى الله عليه وسلم ووبي جنده ku yaalo aniga la siibo nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ahadiis aad u farabadan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam quraanka ku fasiray hadii marka quraanka la doonayo in la fasiro waa in marka labaad lala aado ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ee sugan ee sahihaynka iyo sunanka iyo masaaniida iyo macaajimta inta ku soo arooray waa in marka lagu fasiro wa'iddu lahum mastada'tum min quwwatin udiyaarsada gaalada waxaad kari kartaan oo xoog ah xoog muxuu yahay ala inna alquwwata ar-ramy bi nabi sallallahu alayhi wasallam xoogan la sheegayay waa ganida iyo shiishka iyo toogta in la barto marka nabiga sallallahu alayhi wasallam quwadii aayadu ku soo arortay buu fasiray sallallahu alayhi wasallam in badan bay markay inoogu imaan doontaa insha Allah ta'ala min khilal tafsiirka iyo darsiga dhexdiisa yaani aayado fara badan oo nabigu fasirayo sallallahu alayhi wasallam طيب hadii aayad quraan ah iyo xadiis nabi sallallahu alayhi wasallam oo aayada doonayso inaad fasirto cadaysa aad weydo arrinka saddexaad ee la doonayo inaad aado wax weey saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo aqwaasha ka sugan saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo aqwaasha ka sugan maxaa yeelay saxaabadu waxay ummadda inteeda kale kaga sitaan waa marka koobaad ee horta quraanku markii uu degayay iyaga goobjoog ahaa caadooyinkii iyo dhaqankii carbeed ee quraanku in badan oo kamida uu ka waramayana nimanka garanaya fahmay iyaga ahay waxaan naga caadada carbeed ka garanayna ummadda uu ka hadlayo ee uu la hadlayo ragii ku dhaxdhaqnaaba aad u fahmi kara maxaa yeelay qaraa'in fara badan oo loo kaashan karo ayada fahamkeeda ayay goobjoog ahayn waa mid koobaad waa mid labaad
luqada carabiga ee qur-aanku uu ku soo degay sirteeda saxaabadu way uga aqoon badnaayeen ummadda inteeda kaleeto maxaa yeelay carabtii khullaska ahayd ee barax tirnayd ee waxba dheehine waxba ku darmanen iyagay ahaayeen wixii ka dambeeyey ummadda waxaa ku furantay cajam fara badan carabta luqadeedii wax badan baa galay ummado fara badan oo soo islaamay oo cajam ah baa soo dhex galay luqadii in yar baa waxoogaa wax u soo dhex galeen laakiin saxaabada ridwaanullahi calayhim raggii carabta ee khullaska ahaa ee luqada carabiga sirteeda iyo asraarteeda yaqaana iyagay ahayd qur-aankuna waa luqa carabiga kusoo degay khaasatan luqatu quraysh luqadeedu qur-aanku kusoo degay sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh ta saddexaad waxa weeye qur-aanka in badanoo ka mid a markuu soo degay sabab uu kusoo degay baa jirta sabab uu ku yimid baa jirta arrin markaa taagnayd oo aayaddu ay ku timid baa jirta sababka ood fahamtana waxay qayb ka tahay aayadda macnaheedood fahamto aayadda markaa sababkay ku timid aad fahamto waxay kaa caawinaysaa macnaha aayadda inaad fahamto ayagaa goobjoog u ah marka asbaab fara badan oo qur-aan kusoo degay aayaadka licaanku sabab bay kusoo degeen dihaarka aayaadkoodu sabab bay kusoo degeen yacni waxa weye aayado asbaab badan kusoo degay baa jira wixii sabab kusoo degay marka ayagu way garanayeen taas daraaddeedna saxaabada tafsiirkooda waa looga horumarin tafsiir kaloo dhan waxaa kaleeto oo la mid a quwatulfahmi fahamka bini aadamka ilahay waa u qaybiyey subxana wa tacaala isku fahm maaha hadal inteenna meesha fadhida hadda dhexdeenna laga sheegay baa ninna uu sirtiisa iyo dulucdiisa iyo ujeeddada laga leeya fahmi karaa ninna meel soka iyo daahirkaa inuu ka fahmayo wax kale uusan ka fahmi karin sida fahamka bini aadamka ilaahay ugu qaybiyey ayay saxaabadana ugu qaybsanayd laakiin haddana dadka iyagu ugu siteen xagga fahamka iyo garashada iyo aqoonta iyaguna waa kala horreeyeen waxaa intaa dheer saxaabadu ridwaanullahi calayhim aad waxay ugu dadaali jireen inay qur-aanka tafsiirkiisa iyo macnihiisa ay fahmaan cabdullahi ibni mascuud iyo a'immatu larbaca iyo cabdullahi ibni cabbaas iyo rag fara badan ubay ibni kacab rag fara badan baa soo guuriyey tafsiir aad u fara badan oo la koobi karaynin oo nebiga salawaatu rabbi wasalamu caleyh qaarna laga soo guuriyey qaarna ijtihaadaadkooda iyaga ay ku fasireen cabdullahi ibni mascuud oo kaleeto waxaa laga wariyaa inuu yidhi wallahi aladii laa ilaha hayruhu ma naزlat aayat min kitaab illah ila waana aclamu fi man naزlat waayna naزlat walow aclamu axada aclamu bikitaab illahi minii tanaaluhu lmataaya laataytuhu ilaahay baan ku dhaartay buu idhi isaga cid aan ahayn aan xaq lagu caabudine aayadii ma soo degin kitaabka ilahay ka mid a ilaa hadday soo degtay waxaan ogahay cidday ku soo degtay iyo meeshay kusoo degtay waan garan bar haddaan ogahay cid uun iiga aqoon badan ilaahay kitaabkiisa gaadiidka iyo geeluna ay gaadhi karaan waan tegi lahaa buuhi waan aadi lahaa wuxuu tilmaamayaa cid uu tuhunsan yahay inuusan jirin oo isleeyahay markaa waa kaaga cilmi badan yahay ilahay kitaabkiisa subxana wa tacala maxaa yeelay nebiga salawaatu rabbi wanaas min asaabiqiina alawaliin buu ka mid yahayo tafsiirkii nabiga sal lla alay waslam iyo qur-aanka culumtiisa raggii aad u xambaaray buu ahaa cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu saas way macana ayib saxaabada intooda kalena saasay ah waxaa kalooy la dheeriyihiin saxaabadu dadka intooda kale shaygii soo dega oo ay macnihiisa bartaan way ku dhaqmi jireen shaygana markaad ku dhaqanto oo aad fuliso oo camal uu kuu noqdo fahamkiisu waa kuu baxaya markuu yahay uu nadari shay uun afka aad ka sheegto markuu yahay ama shay uun aad iska fahamsantahay iyo markaad dhaqan geliso waxaad ka fahmi og tahay markii shaygu dhaqan kuu noqdo saas way macnaha hadda salaada haddii laynoo sharxo soo ma fahmin aad baynu u fahmi laakiin bal warsaase ninaan xaj ka tegin xajka u sharaxa maanta dhan haddaad ku haysa meel hebleeleedaa jirto saasay isugu xigaan halkaa ka bilow halkaa ku dhammee yani faham guud inuu ka qaato mooyaane sida salaadoo kale u fahmi maayo limaada lianna salaada wuu dhaqangeliyey wuu sameeyey si fiican buu fahmay shayga markaad samayso oo dhaqangeliso ayaad fahamkiisa si fiican u heli marka waxay ahaayeen aayad qur'aana markay macnaheeda gartaan way ku dhaqmi jireen intayna gudbin wuxuu leeyahay abu cabdiraxmaan asulami nin taabiciy wey waxaa noo warramay buu leeyahay raggii qur-aanka na baray oo saxaabada nebiga sal lla lay slam waxay noo sheegeen inay nebiga qur-aanka ka akhrisan jireen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh 10 aayadood markay bartaan ma aysan tilaabi jirin
إلى أي كو عمل فلان علمك طوانك آيادات كجرة فتعلمنا القرآن